meelahaas oo dhan waxaa laga qaaday ciid la tijaabinayay jaadkeeda waayo waxaa lagama maarmaan ay u tahay meesha laga beeri doono qasabka sonkorta waxaa dabeeto xigtay sahan lagu baadhayay tafaasiisha webiga Juba xagga dhererka xagga xaddiga biyaha iyo dhadhanka biyaha sanadka oo dhan kolkii uu dhammaaday haddaba sahankii hore waxaa la goostay in warshadda iyo magaaladaba laga dhiso agagaarka tuulada la yidhaaho Mareeray oo ku taala bartamaha degmada mashruuca Mareeray waxaa kaloo ay ahayd meel muhiim u ahayd xagga shaqaalaha sahamiyayaashii hore waxaa soo raacay aqoon-yahanada xagga beeraha oo abuuray qasab shinni u noqda beeraha sonkorta marka dambe 3 bilood haddaba kadib kolkii qandaraaska la saxay ayaa waxaa la gooyay duurkii qasabkii shinnida noqonayana waa la abuuray dhulkii duurka haddaba laga gooyay ayaa laga soo guray xididadii oo dabeeta la gubay kolkaasaa dhulkii la qoday oo la simay oo loo habeeyey qaabkii beeraha qasabka sonkortu wuxuu u baxaa sida naqa ama tigaada wuxuu u baahan yahay biyo badan iyo hawo diiran oo u dhaxaysa 20 ilaa 40 darajo haddaba biyo badan iyo hawo diiran waxaa loo daayay webiga Juba kolka la beerayo qasabka waxaa loo googooyaa xidhmo gaaban oo geed baa ka soo baxa kala goyska xubnahaasi u dhaxeeya kolka sanad walba la gooyo waxa ay soo biqishaa haddaba 4 ilaa 5 goor inta aan loo baahan mid kale oo dib loo beero dawladdu waxay ugu tala gashay in iliilado ama faro lagu waraabiyo mashruuca turbadiiba waxaa la sii qorsheeyay farihii waraabin lahaa iyo biyashubyadii iyada oo la joogo sahankii hore oo aan la gaadhin shinniyeyntii beertaba sahanno kale oo dheeraada ayaa lagu sameeyey hagaajin iyo isbeddello lagu sii dhimayay kharashka use this natural feature and make KND1 go down this. I see, but at least we have 3 or 4 kilometers of free drive. waxaa markaasi la filayay in sonkorta la soo saaro bartamaha sanadka 1980 3 bilood kadib kolkii la saxay qandaraaskii weynaa ayaa waxaa la abuuray oo baxaysay xundurtii mashruuca sanadkii hore bartamihiisiiba waxaa la bilaabay qasab goyntii beerihii hore dabeeto waxaa la ku qiyaasay miisaanka qasabka kala jaadka ah ee go'ayay si loo garto nooca ugu habboon degmadaasi xarunta sharikadda beeraha ee Buuker ku leedahay magaalada London waxaa ka soconaya haddaba qorshaynta meelaha lagu rakibayo makiinadaha biyaha qaybinaya ee beeraha gaarsiinaya iyadoo haddaba wax toosa oo isgaarsiina aan lala lahayn meesha warshada laga dhisayo ayaa warka ka imanaya uu yaraa dabeeto waxaa badatay booqashadii lagu aadayay meesha la yidhaaho Mareeray si loo soo ogaado xaqiiqada iyo mashruucu sida uu socdo dhibaatooyinka yarar mooyee mashruucu si loogu talagalay ayuu u soconayay $1,000 per hectare. We expect this to be in the range of $1,200 to $1,300 per hectare. wax kasta sidii la filayay ayay u dhaceen xitaa roobkii wuxuu da'ay xilligii la filayay gugii hore ee mashruucu socday roobku ma kala qaadin waxaase ka sii daraa November 15 ayuu haddaba webigu soo fatahay oo uu xidhka jabiyey Eric Henderson oo ka tirsan sharikadda Buuker ayaa filin ka qaaday Mareeray oo laga daadgureynayay dadkii intii webigu aanu soo fatahin dabeeto waxaa la sameeyey moosas lagu ilaaliyo xerada iyo beeraha wadooyinkii way go'een oo sida qura ee lagu bixi karaa waa dayuurad November 22 ayaa mashruucii sonkorta ee Juba laga qaxay oo waxaa la joojiyey qorshihii tafaqiyadiraa ee bilo taxadirka lagu hayay waxaa mashruucaasi lagaga tagay shaqaale kooban oo iyagu hagaajiya moosaska
biyihii soo fatahay waxa ay noqdeen masiibo mashruucii 150 malyan oo dollar ahaa ayaa ku dhawaaday inuu qaraqmo daadkii wuxuu la tagay 6 bilood oo qorshihii mashruuca ah shaqaalihii laga daadgureeyay mashruuca waxa ay ku sugayaan Kismaayo